Puntland waxaan ahay arday foonfoor ah dugsiga sare sanadka ugu dambeeyo waxaan ka codsanayaa in wasaaradda waxbarashada Puntland ay u tanaasuso wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliyeed waana hanti qaran waxa kan waxbarashadan waa mustaqbal qaran waxaan rabnaa shahaado qaran ma rabnaa nama deeqlo shahaado Puntland Soomaaliya ha noolaato anaga waa ardayda reer Puntland qayb ka mid ah waxaan maanta ka hadlaynaa muujinaynaa dareenkeena ku aadan shahaadada qaranka ka dhaxaysa ardayda Soomaaliyeed oo dhan anaga waa ardayda reer Puntland waxaan doonaynaa inaanu galno imtixaanka qaran ee shahaadiga ee dawladda federaalka Soomaaliya war soo maaha madaxweynaha Puntland waxaan leenahay madaxweyne anagu kuma qanci doono wax kasta khudbad dhaweyd oo maalinta ka hashay waxyaalaha halmaama madaxweyne wuxuu sheegay inaan shahaado qaran ayna jirin kaliya uu soo qaatay baasaboorka madaxweyne waxaan leenahay shahaado qaran waa jira annagana u baahan sidoo kale waxaan leenahay madaxweyne annaga noo ciyaalka dibadda jiraan waa mahadsantihiin anagoo ka mid ah ardayda wax ka barata Puntland waxaan halkan ka sheegayaa inaan u baahanahay imtixaanka federaalka kaas oo shahaadadiisa tahay sumada ardayga Soomaaliga ee wax bartay wasaaradda waxbarashada Puntland waxaan ka rajaynaynaa inay u tanaasuli doonto danta qaranka imtixaanka Puntland waa sugaayada quraacda lagu sugaayay marba haddii imtixaanka qaranku yihiin waa inay noqdaa taariikh la soo maray ma aha mid hadda la marayo 2020 ka sii jiraya maadaama fafaalo dawladnimo ay bilaantay oo Soomaaliya hal meel u socoto hadafkeenu waa arday siman oo galay imtixaan siman si uu helo arday siman waxaan maanta u laangoonay ardayda fikirka qabta inay kor u sheegi karaan sharciguna u damaanad qaadayo in qof kasta fikirkiisa qaban karo Soomaaliya ha noolaato Bismillahir Rahmaanir maanta waxaan halkan kaga hadlaynaa fikirkayaga ama ra'yigayaga ku aadan maalmaha kan isjiidkii jiray ee dawladda dhexe iyo dawladda Puntland oo anagoo ah bahda waxbarashada Puntland wax ka barata secondary-ga waxaan anagu u baahanahay oo kaliya waxay tahay Soomaalinimo ayaana deeqda waxaan u baahanahay waxay tahay in Soomaali midaysan imtixaan midaysan shahaado midaysan laga wada qaato dhamaanteen waxaan u sheegayaa maamulka Puntland inay ka fiirsadaan aayaha dambe ee dhalinyarada wax baranaysa waxaan leeyahay dacartii aan soo marnay 30 sano soo daaqnay nala ku cilmaayo dibna loo ku cilmaayo waxaan u baahanahay imtixaan midaysan shahaado midaysan shahaadada Soomaaliya qiimaha ay leedahay annaga ayaa naqaan nala tusi maayo meesha annaga danta loogu jiro waxaan nahay dad wax soo baranayay 12 sano uma baahnin in la tuso meesha naloo jahaynayo ama danteedu ku jidho waxaan leenahay dawladda federaalka iyo mudane Goodax Barre qorshaha aawado waa qorshe ay kula qaadsan yihiin dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa dawladda federaalku siday isugu hawlshay hawshaas oo ay u wado annaguna waxaan leenahay ardayda Puntland haddaan nahay waxaan u baahanahay imtixaan midaysan iyo shahaado laga sameeyay Soomaaliya ha noolaato waxaan dawladda Puntland iyo maamul goboleedka ka codsanaynaa in loo tanaasulo oo u tanaasusho dawladda qaranka ee dawladda dhexe ee Soomaaliya si imtixaanka midaysan oo qaranka aan la galno walaalaha Soomaaliyeed Soomaaliya ha guul halkan yani maanta wax bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta halkan maxay tolay ku cabirayna dareenkay ku aadan waxyaabaha ayaamahan ka socda maxay tolay maamulka Puntland iyo dawladda dhexe maxay tolay Soomaaliya taasoo ay maxay tolay muran gelisay Puntland maxay tolay shahaadada iyo waxbarashada maxay tolay ardayda wax ka barata Puntland waxaan halkan maxay tolay fariin uga dirayaa maamulka Puntland iyo maxay tolay dawladda federaalka Soomaaliya haddaan ku horeeyo Puntland waxaan leeyahay maxay tolay dad maanta aqoontooda gaarsan tahay ilaa maxay tolay heer dugsi sare maxay tolay 12 sano soo baranayay uma baahna maanta in wax loo tilmaamo iyaga maanta wax loo tilmaamsanaya maxay tolay waa dad maxay tolay ku filan aqoontooda iyo cilmigooda ku filan yahay dad u tilmaami karaan shahaado Puntland Uganda dhigtay waxa dad u tilmaami karaan maahan waxa kale dawladda federaalka ka codsanaynaa maxay tolay hawsha aad wadaan waa hawl sax ah maadaama nala doonaysaan maxay tolay wax siman in dadku shahaado siman helaan dadku waxbarasho siman helaan manhaj siman la helo waxaan aad iyo aad u taageerano haddaan nahay ardada maxay tolay ka bartay iskoolada kamid iskoolada Puntland maxay tolay ahna ardada koonfurka waxaan u sheegaynaa inaan ka soo horjeedno maamulka Puntland waxyaabaha uu ka wado oo waxbarashada ah marka waxaan doonaynaa haddaan nahay ardada Soomaaliyeed wax Soomaalinimo in wax lagu qaato annaga Soomaalinimada ayaa nagu filan waxaan Soomaalinimada saysanayno ma hajido Puntland waxaan maxay tolay u sheegaynaa inay ka digtoonaato waxyaabaha ay ka wadaan waxbarashadii baa la isugu soo dhuntay marka ayaamaha wax kale tagaysa anagu waxaan doonaynaa marka wax midaysan baan rabnaa Soomaaliya ha noolaato